Jubbaland ayaa waxa ay qorsheynaysaa in weerar laba geesood ah ay ku qaado magaalada Garbaharre ee caasimadda gobolkaasi Gedo ka gadaal siyaabooyin kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi hubaruursi xoogan uga jiray. Dawada soo dhawow hadday tahay markaaga kugu horeysay ee aad soo booqato halkan subscribe noo saar noo like garee muuqaalkan waad ku mahadsantahay soo booqashadaada. Wararka laga helayo gobolka Gedo waxa ay ku waramayaan in Maxamuud Sayid Aadan iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam ay qorsheynayaan in weerar laba geesood ay ku qaadaan qaybo badan oo ka mid ah gobolkaasi Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharre. Talaabadan ayaa timid ka gadaal markii Maxamuud Sayid Aadan dhawaan uu hanjabay isla markaana uu sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin aysan ka waaqsan doonin dowladda federaalka Soomaaliya ayna weerari doonaan magaalooyin hor leh oo ku yaala gudaha gobolkaasi Gedo. Waxay u muuqanaysaa isubaratumasho xoogan in gobolku markan uu galayo ka gadaal markii dowladda federaalka Soomaaliya maanta ciidamo aad u tiro badan oo noocyo kala duwan leh ay ka dejisay magaalada Balad Xaawo kuwaasi oo guud ahaanba lagu daabulayo magaalada Garbaharre ee xarunta maamulkaasi. Waxaana la tilmaamayaa in talaabadan ay suuro gelin kartaa in dhinacyadu mar kale ay isfuutaraan. Itoobiya iyo Kenya ayaana la tilmaamayaa in si toos ah ay u hubeynayaan maamulka Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaam Madoobe. Dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ka jireen qaybo badan oo ka mid ah gobolkaasi Gedo. Dowladuna waxaa la tilmaamayaa in mar kale ay qaadayso wejiyo cusub kuwaasi oo maamul ay uga yegleelayso magaalada Garbaharre ee xarunta gobolkaasi Gedo. Ila dhaxalgala oo ku sugan gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ku waramayaan in Axmed Maxamed Islaam Madoobe hogaamiyaha maamulkaasi uu qorsheynayo in diyaarado uu ciidamo ku daabulo isla markaana uu ka dejiyo magaalooyinka Doolow iyo sidoo kale Ceel Waaq oo gobolkaasi ka tirsan halkaasi uu ka ambaqaadayo dagaal xoogan oo laba geesood ah uu ku wajahayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee fariisinka ku leh halkaasi. Waxaana la tilmaamayaa in talaabadan ay maalgelinayaan dowladaha Itoobiya iyo Kenya kuwaasi oo siyaabooyin kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyayba uga shaqaynayay sidii gacanta Jubbaland looga soo celin lahaa gobolka Gedo ka gadaal markii dowladda federaalka Soomaaliya inta badan gobolkaasi ay la wareegtay. Qorshaha ayaa la tilmaamayaa inuu hogaamin doono Maxamed Xuseen Cabdi Lafay oo ah gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolkaasi Gedo kaasi ayaana la tilmaamayaa in laga dhigayo wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka Jubbaland. Waxaase la tilmaamayaa in ujeedka ugu muhiimsan uu yahay inay carqaladeeyaan isla markaana ay joojiyaan qorshaha maamul cusub looga yegleelayo gobolkaasi Gedo kaasi oo la magac baxay Jubbaland cusub. Waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay doonayaan inay joojiyaan Maxamuud Sayid Aadan iyo sidoo kale gudoomiye Lafay oo arrintaasi loo xilsaaray. Dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya qorshahan waxa ay u wakiilatay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag kuwaasi oo iyagu hogaaminaya qorshaha lagu dhisayo Jubbaland cusub ee ka madax banaantan Axmed Madoobe ee ka dhisan magaalada Kismaayo. Waxaana la tilmaamayaa in Axmed Madoobe isaga qudhiisu uu qorshahaasi si weyn muddooyinkii ugu dambeeyay uga soo horjeeday isla markaana uga shaqaynayay abaabullo xoogan oo ciidan kuwaasi oo ka abaabulayay qaybo ka mid ah gobolkaasi Gedo. Ilaahan waxaa sidoo kale ay ku waramayaan in Maxamuud Sayid Aadan iyo sidoo kale Axmed Madoobe ay tagayaan magaalooyinka Addis Ababa iyo sidoo kale Nairobi halkaasi oo ay kula kulmayaan saraakiil sarsare oo Kenyaan iyo Itoobiyaan si ay markaasi uga hadlaan suurtagalnimada gacantooda dib looga soo celin karo gobolka Gedo ka gadaal markii dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan ay ka gacan maroojisay qaybo badan oo gobolkaasi ka mid ah gaar ahaan magaalada istiraatiijiga ee xadbeeneedka ku taala ee Balad Xaawo. Waxaana la tilmaamayaa in hadda qorshuhu uu wejiyo kala duwan yeelanayo isla markaana dowlado shisheeye ay markaasi dabada ka riixayaan. Isu tagga Imaaraadka Carabta, Kenya iyo Itoobiya ayaana si weyn uga shaqaynaya qorshaha lagu hor istaagayo guud ahaanba dhismaha maamulka cusub ee laga yegleelayo magaalada Garbaharre. Waxaa la tilmaamayaa in hub iyo saanad ciidan ay siinayaan Jubbaland isla markaana ciidamo tiro beelahi oo Jubbaland ka mid ah in la keenayo magaalooyinka Doolow iyo sidoo kale Ceel Waaq oo halkaasi ku yaala. Qorshahan waxa uu yahay in guud ahaanba dagaal lagu wajaho dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dowladdu iyadu waxaa la tilmaamayaa in qorshayaal kale ay diyaarinayso kuwaasi oo guud ahaanba kuwa Axmed Madoobe uu diyaarinayo ka duwan kuwaasi oo ka tarjumaya qorshaha nabadgelyada ee gobolka. Waxaana tallaabadaasi ay u wakiilatay dowladda taliyaha amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan kaasi oo dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya xilkaasi ay u dhiibtay
isla markaana gacanta ku dhigay magaalada Balad Xawo. Waxa uu markan qorsheynayaa in guud ahaanba magaalada Doolow oo ah xudun istiraatiiji oo ah maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe in guud ahaanna mar kale uu ku daro. Halkaasina waxaa ku sugan saraakiil Itoobiyaan ah kuwaasi oo iyaguna si weyn u diidan qorshaha dowladdu ay isugu ballaarinayso gobolka Gedo, isla markaana maalmihii ugu dambeeyay ay halkaasi ciidamo uga daabuleysay. Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee iska soo horjeeda ee gobolka uu martigelinayo ayaa marba markii kasii dambeysa kasii daraya, waxaana ku lug leh dowlado shisheeye kuwaasi oo ka shaqeynaya in qoryaha ay isugu dhiibaan guud ahaanba dhinacyada isku haya gobolka Gedo ee dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaam Madoobe. Maxamuud Sayid Aadan oo laanta afka Soomaaliga ee BBC-da la hadlay waxa uu ku hanjabay inaysan marnaba u dulqaadan doonin maamulka laga yegleelayo magaalada Garbaharre, waxaana uu sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin aan laga soo waaqsan doonin kuwaasi oo guud ahaanba ay ka geysanayaan gobolka Gedo ka gadaal markii uu sheegay in lagu xadgudbayo guud ahaanba jiritaanka iyo dhismaha maamulka Jubbaland ee ka dhisan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulkaasi. Waxaana uu sheegay Maxamuud Sayid Aadan mar wax laga weydiiyey sida ay ka yeelayaan haddii la dhiso guud ahaanba maamulkaasi. Waxa uu yidhi waxaan qaadi doonaa tallaabooyin culus kuwaasi oo guud ahaanba aan u adeegsan doono ciidamadeena qaybahooda kala duwan, ayuu yidhi, kuwaasi oo uu kala jeedo ciidamada Jubbaland oo siyaabooyin kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyey looga abaabulayay qaybo ka mida gobolka Gedo. Waxaase la tilmaamayaa markan in garabyo kala duwan ay helayaan, isla markaana Maxamuud Sayid Aadan waxaa la tilmaamayaa in uu guud ahaanba garab ka helaya wadamada deriska. Lama soo oga xiisada gobolkaasi ka taagan iyo halka ay saldhigan doonto.